اسمقل يا داوشو عن صاحب بيال halkani waa janalka dabagalka wararka waa 27 bishii shanaad 2019 wararkan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah amniyaadka al-shabaab oo muqdisho ku toogtay rag ka tirsanaa ergada doorashada Itoobiya oo jawaab ka bixisay qariiradii muran ka dhalisay ee Soomaaliya loogu daray dalkeeda maxaad kala socotaa xiriirka qarsoodiga ah ee u dhaxeeya Muuse Biixi Sambalowshe iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa xog waran ku saabsan khilaafka arrimaha doorashada ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo dagaalka hoose ee u dhaxeeya filla Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar gudoomiye Yariisow oo shaqo joojin ku sameeyay mid ka mid ah ku-xigeenadiisii Itoobiya oo gacanta ku dhigtay sargaal sare oo dubdhaxaad u ahaa xukuumadii maamulka Soomaalida iyo madaxweyne Trump iyo la taliyihiisii dhanka ammaanka oo isku khilaafay arrinta Kuuriyada Waqooyi intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkoran warka janalka dabagalka wararka haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir janalka oo subscribe saar gambaleelka taabo oo rukumo adeega joogtada ah ee 24 saac warar degdega xoga qarsoon faallooyin warbixino iyo dhacdooyinka sida weyn siyaasadda Soomaaliya iyo caalamka looga hadalhayo ee halkan aan idinku soo gudbino kuma hadsanid in aad nagu soo biirtay haatana warkii oo fidsan amniyaadka al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dilay rag ka tirsanaa ergada doorashada ururka al-shabaab ayaa degmooyinka dharkeenle iyo yaaqsheeda waxay ku kala dileen laba nin oo ka tirsanaa ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya dilalkan ay geysteen amniyaadka al-shabaab ayaa ka kala dhacay xaafadaha Suuqleef iyo Jungal oo ka kala tirsan dharkeenle iyo yaaqsheeda ninka lagu dilay dharkeenle oo magaciisa lagu soo koobay Xuseen Maadey ayaa ka mid ahaa ergadii xildhibaanada ku soo dooratay magaalada Baydhabo halka Ibrahim Arif oo lagu dilay yaaqsheed uu kamid ahaa ergadii xildhibaanada ku soo dooratay magaalada Jowhar ila wareedi ayaa xaqiijiyay kooxaha dilalka geystay inay ahaayeen dhalinyaro hubeysan si nabad ahna ay kaga baxsadeen meelaha ay dilalka ka geysteen goobihii dilalka ay ka dhaceen waxaa mar dambe gaaray ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo sameeyay howlgallo aanan la sheegin cidda ay ku soo qabteen ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay sii kordhinayaan beegsiga ay ku hayaan odayaashii ka qayb galay doorashooyinka xildhibaanada ee gobolada Soomaaliya ka dhacay horey shabaab waxay u dileen tiro odayaal kuwaas oo kamid ah ergooyinkii doorashooyinka gobolada dalka Soomaaliya dilalka qorsheysan ayaa maalmahan dambe ku soo badanaya magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka ayaanan inta badan ku guuleysan soo qabashada ragga dilalka qorsheysan ka geysta Muqdisho Itoobiya ayaa jawaab ka bixisay qariiradii muran ka dhalisay ee Soomaaliya loogu daray dalkeeda mas'uuliyiinta dawladda Itoobiya ayaa war kooban oo soo saareen ku sheegay inay ka xun yihiin sawir muran xoog la dhaliyay oo lagu daabacay bogga internetka ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa qoraalka la soo dhigay isla website-ka sawirkan lagu daabacay ayaa lagu yiri waxaan fahamnay in sawir qaldan oo la aqbali karin oo muujinaya qariirada Afrika uu si kaliya ku soo galay bogga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya isla markii aan arinta ka war helnay si degdeg ah ayaan sawirkaas uga bixinay fadlan xaqiiq u haya in kooxdeena dhinaca ICT-ga ay ka shaqeynayaan hubinta ammaanka website-ka waxaan si kal iyo laaba uga qoomeynaynaa jahwareer kasta ay suurtagal tahay in uu sababay isfaham darro ka dhalatay dhacdadan qoraalka ayaa u muuqday mid ay dawladda Itoobiya ku sheegayso inay ka xun tahay dhacdadaasi balse ma aha mid lagu xusay raaligelin rasmiya sidoo kale lama xusin macluumaadka dhabta ee laga dheehanayay sawirka arrintaas oo ahayd tii carada dhalisay lama soo hadal qaadin in qariirada ay muujinaysay Itoobiya iyo Soomaaliya in la isku daray lagana dhigay Itoobiya oo kaliya dadka Soomaalida ah ee isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn uga falceliyay sawirka lagu daabacay bogga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya kaas oo muujinayay qariirada Afrika iyadoo Soomaaliya lagu daray Itoobiya
waxaa xusid mudan in qariirada Soomaaliya ee Itoobiya la raaciyay laga reebay dhinaca waqooyi halkaas oo ay ka arrimiso jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland arrintan ayaa lagu tilmaamay mid meel ka dhac ku ah jiritaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana dadka ka falceliyay ay sheegeen in Itoobiya ay doonayso wax ay ugu yeereen dhul balaarsi dhinaca kale waxaa qariirada la soo sawiray aan lagu muujin Suudaanta Koonfureed iyadoo lagu daray dalweynaha Suudaan hase ahaatee lama oga in qariiradan la sameeyay ka hor inta aysan Suudaanta Koonfureed ka goyn Suudaan inteeda kale tan iyo markii sanadkii la soo dhaafay uu xilka ra'iisul wasaaraha Itoobiya qabtay Dr. Abiy Ahmed waxa horumar dheeraad ah sameeyay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya waxaanay madaxda labada dal yeesheen shirar badan oo ay kaga arrinsanayeen sidii horumar wadajir ah ay u gaari lahaayeen maxaad kala socotaa xiriirka qarsoodiga ah ee u dhaxeeya Muuse Biixi Sanbalooshi iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay wafdi ka socda xisbiyada kulmiye iyo ucid oo shalay magaalada Hargeysa dib ugu soo laabtay kadib kulamo ay la soo yeesheen safiirada dalalka taageera Soomaaliland gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani Cismaan Afgaab oo warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga magaalada Hargeysa ayaa sheegay in wax heshiis aan laga gaarin khilaafkii xisbiyada ee doorashooyinka gudoomiye Afgaab ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay kulan uu wafdigaasi la yeeshay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo sheegay in aysan ahayn markii ugu horeysay ee mas'uuliyiinta xukuumadda Muuse Biixi ay la kulmaan siyaasigan gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani waxa uu sidoo kale markii ugu horeysay shaaciyay in magaalada Hargeysa uu yimaado isla markaana ay xukuumadda Muuse Biixi soo dhaweynayso taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Sanbalooshe waxaad arkiiseen oo shalay wasiirkuna ka hadlayay ayaamaha meelaha warwareegaysay in Cabdishakuur iyo arrinkiisa in Cabdishakuur maaha xukuumadda markii ugu horeysay la kulanto markan waa markii labaad bay noqonaysaa ama markii saddexaad inta la hubo kal hore waxa la kulmay hadda Cabdilaahi Abukar baa maka kula kulmay isagii mas'uuliyiin kale haddana wasiirka arrimaha gudaha la kulmay waxa kaloo jirta rag kale oo mas'uuliyiin oo ka mid yahay ninkii sirdoonka Soomaaliya haysan jiray Sanbalooshe inuu markasta Hargeysa yimaado hodheelada Hargeysa mid ka mid ah la dejiyo markasta xukuumaddu ay dejiso marka dad iyagu noocaas ah ay la kulmaan mas'uuliyiinta xukuumaddu ay la kulmaan aan ahayn wax baan u aragnaa inay misliin ku sameynayso arrintii qadiyadii Soomaaliland iyo wada hadalladii oo dagaalku meel aanu ku jirin ay ka deydayaan waxa weeye tii ay ku eedeynayeen wadanina ay mar walba waxay iyagu faraaq kula jiraan wadani oo marnaba sheegan ama marnaba aan cid kala kulmin inay mar walba waxa iyagu gacanta kula jiraan oo faraaq kula jiraan goob iyo galgalin kula kulmayaan in ay cid kala ku eedeynayaan taasina waxay u muuqataa waxay iyagu wadwadaan inay dadka reer Soomaaliland ka qarinayaan marka waxaan leenahay Soomaaliya waxa inaga dhaxeeya wada hadal Soomaaliya waxaynu kala baxnay 1991kii waxa isugu keen hadhayna waa inaynu dariiq cad iyo wada cad ku wada hadallo wada cadna ku kala inta isugu keen hadhay aynu ku dhameysano Soomaaliland kama mid aha maamul goboleedada ka jira Soomaaliya laakiin sawirka ay u soo qaadayso xukuumadda maanta jirta ayaa wuxuu ka dhigayaa Soomaaliland inay ka mid tahay maamul goboleedada Soomaaliya ka jira marka ay siyaasiyiinteeda iyo dadka aan iyagu waxay isku hayaan marka adigu dhax gasho leeyahay waliba waxyaabo diplomatically khalad ah oo dal kale inaad kaga dhawaaqdo jabhad baan u sameysanayaa iyo ciidan baan u sameysanayaa wixii adigu aad cidda is haystaan aad kaga hortagi lahayd inaad media isla soo taagto taas lafteed waxay tilmaamaysaa tamar darrada iyo awood darrada halka ay marayso marka waxaan ku soo gabagabeynayaa wasiirka arrimaha gudaha ee nale xoog baan ku qabanayaa doorashada hadalka su'aasha la weydiinayo cid uma soo igmadeen haddii tamartaasi ay jirto marka waxaan leenahay war miiska wada hadallada
ee aynu doorashooyinka ku qabsanayno aynu ku soo noqonno waxa qadiyadeena fool xumaynayna aynu iska dayno aad baa mahadsantiin markana xog waran ku saabsan arrimaha doorashada ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sharaxday mabaadi'da iyo habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada balse arrintaasi waxaa ku gacan sayray maamulada ay doorashooyinka ku soo fool leeyihiin war ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriya ayaa lagu sheegay sida ay wasaaraddu u doonaysay in loo maareeyo doorashooyinka maamulada hoostiga dowladda federaalka mabda'a guud oo asalka ahi waa in la qabto doorashooyin ku dhaca hanaan dimuqraadi ah oo xor iyo xalaal ah ujeedadu waa in la xaqiijiyo xaqqa muwaadinka Soomaaliyeed uu u leeyahay in uu soo doorto cidda uu dooran karo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ayay tahay xilkeeda dastuuriga inay ka mira dhaliso hanaanka federaaleynta iyo dimuqraadiyiinta dalka xoojinta xiriirka iskaashiga iyo hirgelinta dowlad wadaagga ayaa lagu yiri qayb ka mid ah qormada war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu dalbaday qodobo ay ka mid yihiin magacaabista guddi farsamo oo loo dhan yahay oo ka shaqeeya soo xulidda xildhibaanada dowlad goboleedka xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka waxaa si madax bannaan u soo xulaya odayaasha dhaqanka beelaha ay ka soo jeedaan hase yeeshee qodobadan ayaa khilaafaya hanaankii ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada in doorashada ay u qabsoonto labada maamul goboleed ee kala ah Galmudug iyo Jubbaland oo la filayo in bilaha soo socda doorashooyin ay ka dhacaan ayaa ku gacan seeray mabaadi'dan ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Durraan Maxamed Samatar oo ah wasiirka arrimaha gudaha Galmudug ayaa BBC-da u sheegay inay la dhacsanayn hadalka ka soo baxay dowladda dhexe waxa uu sheegay in shirkii Jabuuti ka dhacay qodobadiisa ay ka mid ahayd in doorashada Galmudug ay dib ka dhacdo waqtigeeda taas oo hadda ku aadan 2 sano iyo bar kadib talaabada ay mas'uuliyiinta Galmudug qaadeen ayaa u muuqata mid sii xoojinaysa khilaafka kala dhaxeeya dowladda dhexe inkastoo qayb kale oo ka mid ah madaxda Galmudug ay sheegeen in doorashada maamul goboleedkaasi ay dhacayso horaanta bisha Luulyo in muddo ahba waxa laba qayb u kala jaban mas'uuliyiinta maamulka Galmudug dhinac walbana waxa uu soo saaraya go'aano ka duwan dhinaca kale war-saxaafadeed gelinkii hore ee xadda ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in Jubbaland ay leedahay go'aanka ku saabsan hirgelinta iyo maareynta doorashada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay cadeynayaan inay u madax bannaan yihiin xilna ay ka saaran tahay in ay qabato doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Jubbaland hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya u sheegtay in ay leedahay mas'uuliyadda in ay dusha kala socoto ama ay kormeerto habsami u socodka doorashooyinka dowlad goboleedyada inkastoo arrintaasi ay ka biyadiidsan yihiin maamul goboleedyada qaarkood dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shaqo joojin ku sameeyay mid ka mid ah ku-xigeenadiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yarisow ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiidow wareegto uu soo saaray gudoomiye Yarisow ayaa lagu sheegay in gudoomiye ku-xigeenka shaqada laga joojiyay oo uu sameeyay amar diido iyo shaqo curyaamin uu ka wada qaybta howlaha guud iyo nadaafadda sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in shaqo joojin uu ku sameeyay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo injineeriyadda isla markaana aanu kala tashan sidoo kale waxaa la sheegay in gudoomiye ku-xigeenka uu amar ku bixiyay in la joojiyo mashruucii lagu dhisayay garoonka Qoob Dooro ee degmada Karaan docda kalena dowladda Itoobiya ayaa gacanta ku dhigtay sargaal sare oo dubdhaxaad u ahaa xukuumadda maamulka Soomaalida dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay sargaal hore uga tirsanaa maamulkii deegaanka Soomaalida ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdi Maxamuud Cumar dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay qabatay sargaalkan oo in muddo ay ku raad joogtay waxaana loo haystaa sida ay sheegeen gabood folo dhacay intii ay jirtay xukuumaddii hore waxaana la filayaa in uu wajaho maxkamadayn Xasan Ismaaciil Ibrahim oo loo yaqaan Xasan Dheere ayaa ahaa korneel ka tirsan ciidanka Liyu Police waxaan horey u soo qabtay xilal kala duwan oo sarsare waxa uu horey u ahaa hoggaanka nabadgelyada ee dowlad goboleedka Soomaalida waxaan uu ahaa gudoomiyihii dhinaca asluubta balse markii uu u gudbay dhinaca Soomaaliya waxa uu ku hakaday deegaanada ku dhow xadka Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo haddana laga soo qabtay magaalada Goldogob Xasan Dheere ayaa ka mid ahaa in ka badan 40 ruux oo xeer ilaaliyaha dalka Itoobiya uu amar ku bixiyay in la soo xiro si cadaalad loo horgeeyo waxaa ninkan lagu eedeynayaa inuu mas'uul ka yahay tacadiyadii ugu badnaa ee ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan xabsiga caanka ku ahaa xadgudubyada ee loo yaqaano jeel ogaadeen wararka qaar ayaa sheegaya in qabashadiisa ay gacan ka geysteen dad ku sugan deegaanka uu ku dhuumaalaysanayay ugu dambeynna madaxweyne Trump iyo taliyihiisa dhanka ammaanka ayaa isku khilaafay arrinta Kuuriyada Waqooyi
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku gacan seeray walaaca laga muujiyay hubkii dhawaan ay tijaabisay dowladda waqooyiga Kuuriya. Trump ayaa u muuqda mid ka aragti duwan la taliyihiisa dhanka ammaanka John Bolton. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka kadib markii uu maanta gaaray dalka Japan ayaa Trump waxa uu gantaalada Kuuriyada waqooyi ay dhawaan tijaabisay ku tilmaamay hub yar oo aan macno lahayn. la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweyne Trump John Bolton ayaa shalay oo Sabti ahayd sheegay in tijaabada hubkaasi ay lid ku tahay qaraarada qaramada midoobay ee dalkaasi. madaxweyne Trump ayaa dalka Japan waxa shalay uga bilowday booqasho rasmi ah waxaana durbo uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe. labada hogaamiye ayaa ku kulmay kulan quraaca kor inta aysan si kooban u wada ciyaareen ciyaarta golofka meel ka baxsan magaalada caasimadda ah ee Tokyo. Trump ayaa sheegay in uu doonayo in dalkaasi Japan uu la saxiixday heshiis ku saabsan waxa uu ku tilmaamay isu dheelitir la'aanta dhanka ganacsiga ee u dhaxaysa labadan wadan. madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa u dhigay sida tan: Kuuriyada waqooyi waxay tijaabisay hub yar oo dhibay qaar ka mid ah dadkayga iyo kuwa kale, balse anigu marnaba ima dhibin. waxa uu intaasi ku daray, waxaan ku kalsoonahay in gudoomiye Kim uu ilaalin doono balankii uu ila galay. ma markii ugu horeysay oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku khilaafayo John Bolton. ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa isbuucii la soo dhaafay tijaabada hubkaasi ee Kuuriyada waqooyi ku tilmaamay mid aad looga qoomameeyo. Bolton iyo ra'iisul wasaare Abe ayaa labaduba ku eedeeyay Kuuriyada waqooyi in ay jabisay qaraaradii qaramada midoobay ee dalkaasi ka mamnuucayay in hub ay tijaabiso. hadalladan iskhilaafsan ee ka soo baxaya Trump iyo la taliyihiisa dhanka ammaanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhawaan sidoo kale ay isku khilaafeen arrimaha siyaasadda dibadda ee Mareykanka, sida qaabka ay tahay in loo wajaho xasarada siyaasadeed ee dalka Venezuela iyo xiriirka Mareykanka iyo dalka Iran. guud ahaan war wixii dal iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen channelka dabagalka wararka waa nageynta. haddii aad ku cusub tahay kusoo biir channelka adigoo subscribe saaraya kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino. kuma hadsanid in aad nagu soo biirtay.